لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسوه قبل الأول يا مانسا آيات أفرطن يكوبات وكم إذا سورة المائدة. وحاول سورة شرني آياتي لقاها اللي أحكامته خاصة حدود لو تلقى بني آدم كقيبتيسا قلنا عصان إن لو توسيو آيات المركة وحيكاها الليسا والله قاها الليا ضد برشادة كل احترا وبرشادة مسلم كي ومجتمع مسلم كل احترا النبي كان الله صلى الله عليه وسلم وقتي والبلد شرا ayaad lagu tilmaamayaa cadowna ah in la iska jirana loo baahan yahay. Allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha rasuulu rasuulow laa yaxzunka yaysan ku murginin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada dhexeeda kuwa ku degdegaya oo min aladiina kuwii ka mid ahaa hadduu yahuudoobay samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan wey lilkadibi beenta samaacuuna laa yaxzunka yayna ku murugelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada ku degdegaya oo min aladiina kuwii ka mid ah qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim afafyaalkooda sidaa ku yidhi walxaal bay saa dheheen lam tu'min ayna rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu ayna rumaynin iyo wa min aladiina kuwiina ka mid ah haaduu yahuudoobay labadaa qolo ah samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan wey oo dhagaysi badan lilkadibi beenta samaacuuna kuwii maqlid badan weeye liqawmin dad aakhariina oo kale dadkaa kale oo lam ya'tuuka aan kuu imaanin ayay aada u dhagaystaan warkooda yuxarifuuna way alkelima weedii erayadii bay bedelayaan min bacdi mawaadicihi meelihiisii kadib meelihii ilaahay dhigay kadib bay bedelayaan yaquuluuna waxay leeyihiin in uutiitum haddii laydinla yimaado haadaa kan fakhuduuhu qaata kan la bedelay oy bedeleen haddii la idinla yimaado oo cid kale idinla timaado ka qaata wain lam tu'tawhu haddaan la idinla imaaninna faxdaruu digtoonaada iska jira waman yurid illahu ciduu alla doono fitnatahu fitnadiisa ciduu doono falan tamlika ma aad helaysid lahu isaga min allahi xagga alle falan tamlika ma milkinaysid lahu isaga min allahi xagga alle uga milkin maysid shay-an waxba ulaa'ika kuwaas aladiina kuwii weeye lam yurid illahu alla uusan doonin an yutahira inuu tahiro quluubahum qalbiyadooda inuu tahiro lahum waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexeeda waxaa u sugnaaday khizyun hoog baa u sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeedana cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo weyn. waa qolo munaafiqiin ah iyo qolo yahuud ah. bulshada ilan yahuudna way ku dhex noolayd, niman munaafiqiin oo islaamnimada muujisana way ku dhex noolaayeen. rasuulkaa marka waxaa leeyahy sal alay wasalam yaysa ku murgelin waxba ha ka murgin kuwa gaalnimada dhexeeda ku degdegaya, yacni si aan ka fiirsi lahayn bay gaalnimada ugu ordayaan oo ugu degdegayaan. kuwaasoo laba qolo ah. qolo waa qolada yidhi waanu rumaynay afka ka yidhi iyagoo qalbigooda uusan iimaan ku jirin, qaaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum. qoladaas waa munaafiqiinta. qolada labaadina waxa weeyaan waa kuwa yidhi waa yahuudownay wa min aladiina haaduu kuwa yahuudoobay wey. labadaa qolo gaalnimada ay ku degdegayaan waxba yayna ku murginin baa nabiga yidhi sal lla alay slam. maxaa yeelay
iyaga unbay dhibi iyaga unbay dhibaatadu kusoo noqone adiga waxba kuma yeeli karaan ilaahay baa kula jira subxaana watacaala ku waardiinaya waxba kuma yeeli karaan hadday gaalnimo ku degdegaan oy qaataan yani waxa weye si fiican u qaataan ayagay jirtaa iyagii ilahay baa ka xisaabtamaya maana iyagii baa lasii tilmaamo waxaa la yidhi waxay aada u dhegaystaan oo maqlid badan yihiin beenta waa dad beenta aada u dhegaysta waxaa kaloo aada u dhegaystaan kuwa aan adiga kuu imaanaynin waa madaxdoodii iyo odayaashoodii iyo kuwo gadaal xagga jooga oon adiga majaalistaada iyo masaajida iyo meelaha wax lagu sheegayo aan kuu imaanaynin kuwaasay si fiican wax uga dhegaystaan saas maana waa kuwa yani waxa weye hogaamiyaashooda kuwaasay aada u maqlaan kuwaasoon kuu imaanaynin khaladaadkooda waxaa ka mida ilaahay kuwaas ay u tegayaan ee ay wax ka dhegaystaan ee hadalka ka maqlaan kuwaasi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii iyo hadalladiisii meeshii uu dhigay bay ka bedelaan oy ka leexiyaan laba macnoba waan soo marnayo yani inay macnihii si xun u turjumayaan ilaahay kitaabkiisii bay si xun uga turjumayaan oo markay doonayaan dadka inay u fasiraan sidii ilaahay uu ugu talagalay uu qastay si aan ahayn bay dadka ugu sheegayan ama meehe xarafkii meesha ku yaallay laftiisayba wax ka bedelayaan xarakada iyo shaqalka iyo dhibcaha iyo waxbay bedelayaan waxaasoo keeni kara macnihii inuu isbedelo marka yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi yaquluuna in uutiitum hada faquduuhu wain lam tu'tawhu faxdaruu sharcigii ilahay markay bedelaan oo mid iyagu jeebkooda ay kala yimaadeen ku bedelaan kaa ay jeebkooda kala yimaadeen bay isu dardaarmayaan dadweynihii waxay ku leeyihiin kan aan bedelay haddii la idinla yimaado oo Muxamed iyo ama cid kale kanoo kale ay idiin keento ka qaata kan aan bedelay waxaan ahayn laakiin haddii la idinla yimaado ha yeelinay ka taxadara iska jira saas waxay ahayd balle oo aayadan iyo aayaadka soo socdaba ay ku yani waxa way ku saabsan yihiin laba yahuudi ayaa sinaystay nin yahuudiya iyo naag yahuudiyada nabiga uu keenay sallallahu alayhi wasallam marka uu keenayaan way la soo dardaarmeen oo waxay ku yiraahdeen sidii aynu naqaanay si ka gadisan hadduu idin la yimaado ka yeelina u taga bal wuxuu yiraahdo soo arka nabiga markay uu keenay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri tawreed maxaa ku yaalay maxaad ku samaysaa sidoo kale markay u sinaystaan tawreed maxaa ku yaalay waxay dhahay tawreed waxaa ku yaalay inta wajiga loo madoobeeyo dameerna la saaro qadaadkoodana la isu jeediyo magaalada in la dhex mariyo oo macnaha waxa weeye lagu soo wareejiyo saasa tawreed ku taal kadibna la jeedlo oo la karbaasho intaasa tawreed ku taal lil culimadoodii kamid uu yeeray nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu ilaahay ku dhaariyay ilaahay buu ku dhaariyay wuxuu ku yidhi ilaahay baan kugu weydiinayaa tawreed wuxuu ku yaalay isha markaasuu yidhi haddaad ilaahay ugu dhaariso tawreed waxaa ku yaalay in dhagax lagu dilo marka wuxuu yidhi haddii ay tawreed saa ku taallay maxaad u samayseen sidan oo magaalada ha la dhex mariyo iyo wejiga ha loo madoobeeyey iyo ha la jeedlo iyo warkan maxaa keenay wuxuu yidhi waxaa dhacday yani zinadaa waxay ku badatay dadkii sharafta lahaa dhexdooday ku badatay reer bani israa'iil markaasaa waxay noqotay dadkii sharaf lahaa iyo madaxdii iyo dadkii magaca lahaa dhagax laguma dili karo maxaa la sameynaya marka zinadiina dhexdooda aada ugu faaftay waxay noqotay marka in dhagaxa lagu dilo la rajmiyo uun dadka uun macnaha intooda tabarta daran masaakiinta arrinkii baan ka fadhiisanay waa laga shiray go-aan waxaan ku gaadhnay ama mid sharaf leh ha noqdo ama midaan sharaf lahayn ha noqdee ruuxu hadduu zinaysto in la jeedlo lala caam bixiyo bulshada la dhex mariyo wejigana loo madoobeeyo heshiiskaasaan gaadhnay oon markii dambe arrinta isugu soo ururinay ayib marka ta ay bedeleen waxa weeyaan wejigii ha la madoobeeyo dadka ha la dhex mariyo ha la dhaleeceeyo intani waa inta iyagu ku heshiiyeen kitaabka ilahayna maxaa ku yaalay dhagaxa lagu dilo waxay leeyihiin marka taa inagu aynu sii naqaanin ku dhaqmi jirnay hadduu maxamed la yimaado oo yidhaahda labadan zinaystay ha la jeedlo wejigana ha loo madoobeeyo hana la dhaleeceeyo intaa hadduu xukumo ka yeela
hadduu war kale la yimaado iyo dhagaxa lagu dilana hadeelina diida bay leeyihin macana in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'tawhu faxdaruu bay leeyihin kan aynu inagu naqaanay hadduu la yimaadona ka yeela haddii kalena diida bay leeyihin macana saas weya rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala yani xadiiska gabagabadiisu wuxuu ahaa nebigu wuxuu amray in la rajmiyo dhagax baa lagu dilay labadoodiiba ninkiiyo naagtiiba marka waa dad fitnaysan dad la fitneeyey oo rabbi subxaana wa taala yani shaydaanuu fitneeyey wey ninkii fitna lala rabana oo ilaahay fitnadiisa uu doonayo inuu baadiyeeyo uu qadarayna wax haba yaraatee hanuun u heli kara ma jiro kuwaasi waa kuwa uusan ilaahay dabcin uu qulubtooda dahiro adduunka waxay ku leeyihiin hoog aakharana cadaab weyn bay ku leeyihin qulubtooda in la dahiro laguma talagelin iimaan inuu qalbigooda galo laguma talagelin lan iimaanka qalbiga nadiifiya gaalnimo iyo kufri iyo jahli inuu qalbigooda baaqi ku ahaadaa la qadaray saasuu ilahay qorsheey subxana wa tacala yaa wax u qaban kara marka haddiiba ilaahay saa qorsheeyey yaa wax u qaban kara ma cid baa iimaanu siin karta ama ilahay xagtiisa wax ugu keeni karta ma jirto maana yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow rasuulow laa yaxzunka yaysan ku murgilin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya fi lkufri gaalnimada dhexeeda ku degdegaya min aladiina kuwii ka mid ah qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim afafyaalkooda ku yidhi afka unbay ka dheheen way macana wixii la dhahaya afka unbaa laga dhahaye ee waxaa laga wadaa afkama dhaafsiisna walxaal bay saa yidhahdeen lam tu'min aynan rumaynin quluubuhum qalbiyadoodu ma rumayno iimaanku qalbiga ma jiro waa un afka saas way maana afkay ka leeyihiin ka shahaadanayaanoo afkay ka sheeganayaan laakin qalbiga ma jiro waa munaafiqiintii kuwaas wa min aladiina kuwii min aladiina horay ku cabsanta kuwaasoo min aladiina kuwii ka mid ah wa min aladiina kuwiina ka mid ah haaduu yahuudoobay kuwii yahuudoobayna ka mid ah kuwa afka iimaanka ka sheegtayna ka mid ah marka labaadna kuwa yahuudooday ka mid ah labadaa kooxood gaalnimada ay ku degdegayaan waxba hayayna ku murgani baa le samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa dhagaysi badan weya oo maqlid badan lilkadibi beenta iyo kutiri kuteenta iyo warka aan waxba ka jirin bay u dhag raariciyaanay jeceli taasi aada u dhagaystaan samaacuuna kuwa maqlid badan wey oo dhagaysi badan liqawmin dad aakhariina oo kale kuwaasoo lam ya'tuuka aan kuu imaanin yani niman aan golahaaga imaaninba oo duruustaada imaaninba oo yahuud ahoo odayaal ah oo culimadooda ah oo xaggaasoo kale u fadhiya kuwaasay aada u dhagaystaan oo warkooda qaataan adigana meeshaada way yimaadaan kuwan yaryarkaa meesha way yimaadaan laakiin kuwaasay maqlaan warkaaga ma maqlaan ma qaataan kuwa laakiin ay ka tala qaataan ee aada ay u maqlaan warkooda waa kuwa aan kuu imaanin yuxarifuuna kuwa aan kuu imaanaynin ee golahaaga aan imaanaynin yuxarifuuna way leexiyaan alkelima kelimooyinkii ayay bedelaan hadalkiibay bedelaan ilahay hadalkiisay bedelaan min bacdi mawaadicihi meelihiisii kadib boosaskii ilaahay dhigay kadib ayay bedelaan booskiibay ka qaadaan oo meel kaley geeyaan macnihiisiibay bedelaan oo macno iyaga jeebkooda abay u sameeyaan si iyaga hawadoodiiyo say rabaan uu ugu adeego saasay sameeyaan wey macna yaquuluuna waxay leeyihiin in uutiitum haddii la idinla yimaado haadaa kan muxarafka kan aan idiin bedelay een anagu idiin dejinay ee jeebkanaga aanu kala nimid ee sharciga aan idinka dhignay kan oo kale haddii la idinla yimaado oo muxamed idinla yimaado fakhuduuhu qaata maxaa yeele waa kii aynu haysanay laftiisa hadduu yidhaahdo labada zinaystay yaan la dilin dhagax yaan lagu dilin inta la jeedlo uun hala dhaleeceeyo hala ceebeeyo hadduu xukum kaa xukumo waa kaynu naqaanee ka qaata wain lam tu'tawhu haddaan la idinla imaanin kaa muxarafka in lam tu'tawhu kaa aan bedelay haddaan la idinla imaaninna oo war kaleeto uu keeno dhagax ku dila iyo waxa hadduu keenana faxdaruu ka digtoonaada iska jira marka ha yeelina waman yurid illahu ciduu alla doono fitnatahu fitnadiisa falan tamlika heli maysi lahu isaga u heli maysi min allahi xagga falan tamlika hanan mayside falan tamlika ma milkinaysid oo ma hanan kartid lahu isaga min allahi xagga alle shay-an waxba ugama hanan kartid ulaaika kuwaasi aladiina kuwii wey lam yurid illahu alla uusan doonin an yutahira inuu dahiro quluubahum qalbiyadooda inuu dahiro lahum waxaa usugnaaday fi dunya adduunyada dhexeeda khizyun hoog baa usugnaaday walahum ayagana waxaa usugnaaday fi laakhirati aakhira dhexdeeda waxaa kaloo usugnaaday cadaabun baa usugnaaday cadiimun oo weyn
سماعون أيها وركودي ولا سيولا سماعون كون نجيس بدوي أو مغلط بدن للكذب بنت باطل كي وحنا وحنا كتيرنو بيأذون الإسلام أكلوا لك وعرض بدوي للسحت حرات فإن جاءوك هذيك يبدا النبي فاحكم حكم بينهم لحظة أو أمس أعرض كيس عنهم حكم هذيك يبدا أيها حكم دولا حكم أو كلا حكم هذا دوتريس كيس خيار ضلنا وإن تعرض هذا كيس عنهم حكم فلن يضروك كل بما شيء وحمك كل بما وإن حكمت هذا الحكم فاحكم حكم بينهم نحن وضوحات كل حكم بالقسط عدالة حكم سي عدالة أكو كالساعة حيالي إن الله ألا يحب وحج عليه المقسطين كو عدالة حكمة كو عدالة حكمة وعدالة كدد على أيها الله سبحانه وتعالى تعالي بينتي نجيسي بدي بالوسع عليه وأمد بيناتي رد إيا حتى إيا عدالة إيا مجالة لكن وحي سأليه بنت سيئاد النجيستان أكالون للسحت حرام تنويعنا مكتودنا بنت وبيتعش أفكودي على شادنا وهو الحرام لالوش إيا الربا إيا خيانه إيا وحسد ومريك بيكونوا ليه خاصة نمانك علماء ضد أيها قامياش فضوي معنا هذا يمرك كوي مادان النبي محمد أيها أودونا يا إلى كلا سارتو هذا ضد كلا بيحيى وكلا حكم هذا ضد الإسكده كجيسو لو ده وهلي كده هذا ربط إلى كلام بحساب الشرع إلهي كوسو دشيء بتكو كلام بحين ما هذا يجود دشتري يبي دشيء كودا كليبا داري يبي أقول شرير ما سيد إلهي وكوسو دشيء بتكو كلام بحين هذه كلامه وحوي ذي كلام حكومة ضايع إضافة وسكيتش صدرت وهلي كده هذا كجيس ستو أو أدمك أديدو حكلا ساري دولا ما دام أي قاليه ضنا كلام وطن داعم لمن عيلك أهدك الحكم هذا كتشي ستوني بكاسو قاري ماي كما دي بكرا إلهي باكو إلى الله سبحانه وتعالى هذه الحكم تصي أدقان كو قادة إلى كلا حكمته وحال ليه هي عدالتك كلا صار ساس وعليه يحب صلوات ربي والسلام عليه عدالتك كلا صار بحي اليهود بها هذا يهودها هذا يعني أبغض خلق الله هذا هذا خلق إلهي اللي وانت إلهي يقول نعميه هالنقطة هالنقطة اللي وانت اللي محمد يقول عداوة بضل هالنقطة لكن مسألة هو محكمة هي دولة محكمة مرها دي تاجنتها حكم هي محكمة أي تاجنتها هي ضد هلا كلا صاروا يهودي ويا يا نصراني ويا يا مسلم ويا ما كلا لي مركوا إلى عدالة الاستجابة معنا كنا وإحنا قلنا حيينا يقول كعسرة ملء كنا الدين تيجي كسر تشيد ملء كنا إلى يقول حزب يقول أو الإسلام وضعنا هي بشرته وإن مركا عدالة اللي قد دلوا معنا حيالي حالة سيدي ورما مرة دي يعني حقوق نقطه بين آدم أي نقطه حقوق ذا قوي كذا ولا سوي معنا تدفع حقوق ذا وإلا قوي الله سبحانه وتعالى وحده تعليها يكون عدالة السماوية وتعليها عدالة الحكومة مركا سوابتي فريد السوشيال لي وبلد وجهه حكم كي تورات كي يبدلين وهذا كالزينيستا إذا يحلو قتله كي يبدلين بلد وجهه ليه محمد مركي ليه بالقطة maaha inay dacad kama Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaq buu wataay hayri kala saar kama ay ay rumaysnaba rasuulnimadiisa ay diidayeen laakiin waxay ula jeedaan uu dana kale wataa saas weeyaan waxa kale iyadana Abdullah ibn Abbas ka sugan inuu leeyahay aayadahan soo socday waxay ku soo dageen laba reer oo yahuuda magaalada Madiina degan saddex reer bay ahayd laakiin qisadan hadda waxay ku saabsan tahay بنو النضير لمنك اللي ورنشري بنو قريظة لمنك الرئيب بني النضير اللي إذا ذاك حوك بالنار وأشراف أهم بيحايا لمنك الرئيب بني قريظة اللي إذا هذا ولا حوك بالنار ولا اللي دي تشري بقى الله نحمر ويده رئيب بني قريظة سيفي على الله أتكاذي مركي لقى أتكاذي ما قدوه وحيكوك قارين وكوه الشيء هذه أريد إلى نحمرت ودل أما طاوع إلى نحمر ninka reer bani qurayda haduu dil geysto waa ila dilo qisaas laakiin ninka reer bani nadiir haduu nin reer bani qurayda adilo asaga la dili maaye waxa uu la qaadanay mag baa laga qaado bas saas ma yani waxa uu reer bani qurayda gun laga dhigtay wala yani gun baa laga dhigtay dan liito oo dhiigoodu uu san la sinay ninka reer bani qurayda noqdeen ninka reer bani nadiir dhiigoodu lama
hadday mag tahayna lama sinna hadday qisaas tahayna lamama qisaasanayo arrinkaasay marka ku dhaqmi jireen nebigu markii lasoo saaray sal alay slam bay reer bani qurayda marka arrinkii diideen reer bani nadiiro ma soconaysa de wixii hore aynu ku socon jirnay wax soconaya ma oo maxaa dhacay sooniga hadda ka horkii shilima hadda waxay waagaa waad naga adkaateenoo xoog baad noo sheegatay dan baan ugu kaliftay inaanu idinka yeelaa taas laakiin maanta yani waxa weye maxamed baa yimid oo magaalada madiina ka taliya asagaanu u tegaynaa wax gardarra ana maanta hadda kadib ma aqbalin xaq darradaa yeeli mayno nabigaa loo wada yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo arrintii loo keenay taas inay tahayna waa suurtagal oo nebigu markaa sal alay wasalam wuxuu xukumay oo uu ku yidhi dhiig ka fiican ma jiro nin ka sarreeyana ma jiro laftiisha waa in loo dilo reer bani qurayda reer bani nadiir muslim ruuxii ruux dilo waa in la dilo dadkii lahaa inay cafiyaan mooye laakiin nin baa nin ka dhiig fiican war jira ma aha inay taa ku saabsan tahay oo axkaamtu taa ka hadlaysana waa suurtagal oo aayadda soo socotaay marka waxay ka hadli doontaa aayadaha soo socda lagaga hadli doonaa naf hadday naf disho in loo dili hadday san goyso waa in loo gooyo sababa nusuulku inuu kaa yahana waa suurtagal oo aayaduhu ay arrintaa ku saabsan yihin arrintii labadii kala zinaystay inay ku saabsan tahayna waa suurtagal labada sababba inay hal mar wada dhaceen oy labadaba aayaddu kusoo wada degtayna waa macquula waa suroobi kartaa ibnu kathiir baana saa rajaxaya samaacuuna wey kuwa maqlid badan weeye lilkadibi beentay maqlid badan yihin akaaluuna kuwa cunid badan weeye lisuxti xaaraantay cunid badan yihin dadka dhiigooday ku nool yihiino macnaha waxa weye maray laaluush ka qaataan iyo markay minay ribo kula tacaamulaan iyo markay xoolahooda unbay jidad kala gedisan u maraan fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan faxkum xukum baynahum dhexdooda kala xukum aw amase acrid jeedso canhum xaggooda iskaga jeeso wain tucrid haddaad jeedsato canhum xaggooda ood xukumkooda iska diido falan yaduruuka ku dhibi maayaan shay waxba kugu dhibi maayaan falan yaduruuka yani kaa dhibi maayaan shay-an waxba kugu dhibi maayaan wax alla waxay kaa dhimayaan ma jirto wain xakamta haddaad xukumtana faxkum xukum baynahum dhexdooda bilqisdi cadaalad ku xukum maxaa yeele ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuqsitiina kuwa cadaalada xukumay kuwa cadaalada sameeya ayuu alla jecelaya subxana wa tacala ayagii baa marka hadda lala hadlaya nimanku inaysan maxamed hadla kala saaro daacad ka ahayn waxaa rabbilahi subxaana wa tacaala oy xumaan ujeed yihiin wa kayfa sideebay yuxakimuunaka ay xaakim kaaga dhiganayaan walxaal wa cindahum walxaal cindahum iyagoo agtooda ay tahay altawraatu tawreed fiihaa xaal ay tawraad dhexeedana xukmullahi xukumka ilahay u yahay uma markaa kadibna yatawallawna ay u jeedsanayaan min bacdi dalika ka xaakim yeelashada kadib yay jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi maynan ahaanin bilmu'miniina mu'miniin maynaysan ahan waa la yaabe seebay xaakim kaaga dhiganayaan iyaga oo kitaabkii tawreed ahaa uu dhexdooda yaallo tawreedna xukumkii ilaahay uu ku yaallo kadibna weliba waxaaba kasii caja badan intay tawreedii ay rumaysnaayeen xukumkan ay doonayaanna uu ku yaalay intay kasoo tillaabsadaan ay kuu yimaadaan oy xaakim kaa dhigtaan markaad xukumtay kadib haddana inay ka jeedsadaan bal intay khalad galayaan fiir tawreed oo dhexdooda taallay xukunkanna ku yaallo way ka tageen mayna banaanka marina nebi maxamed bay u keensadeen salawatu rabbi wasalamu caleyh garsooro ka dhigteen markuu gartii gooyey oo xukumay mayna u hogaansamina way ka jeesadeen marka nebi maxamedna ma rumaysna iyo kitaabka qur-aanka wato tawreed iyo kitaabkii tawreed ahaana ma rumaysna wamaa ulaa'ika bilmu'miniina niman wax rumaysanba maa nimankan waa niman ul maslaxadoon ahoo yani waxa wey la jiifiyaano banaan kolba sidii macnaha ay la noqoto un bahasha u rogrogayo laakiin diin haabita iyo mabda'a haabit ay ku socdaan ma jira wy mana kolba say iyaga laftooda ka helaan bay u rogrogayaan wa kayfa sideebay yuxakimuunaka kayfa sideebay yuxakimuunaka xaakim kaaga dhiganayaan say xaakim kaaga dhiganayaan wa cindahum iyaga oo agtooda atawraatu tawrada ay tahay iyada oo tawrada agtooda ay tahay fiihaa xaal uu tawraad dhexdeeda xukmullahi xukumka ilahay u yahay leanna xukumkan hadda nebiga ay u keenayaan oo ah yani labada zinaystay maxaa loogu talinayaa tawreed buu ku yaalla xukum dhexdooduna yaalla bal tawreed keena buu nabigu ku yidhi sal ly slm tawreed markii lasoo hordhigay la akriya buu tawreed markii la akriyey
aayaddii sheegaysay in dhagax lagu dilo labada zinaystaay ayay gacanta saareen markaasay xagga horena ka aqriyeen xagga dambena ka aqriyeen iyadiina way ka boodeen cabdullahi ibnu salaam oo meesha joogay baa wuxuu yihi war gacanta ka qaad meeshaad gacanta saaran hadduu gacanta ka qaadayba waxaa meesha ka soo baxdayba aayaddii odhanaysay dhagax ku dila war maxaa dhacay sootan meesha ku taalla ma may maxamed wadaan kaa aqrinayni bidhe wadaan kaa aqrinayni marka waa saas xukunkani marka tawreed waa ku yaallaa iyagaa laakiin tawreed intay ka tageen bay waxay dejisteen nidaam kale iyo qaab kaloo u ciqaabaan dadka sinaysa haddii la yidhaahdo waxay ku saabsan tahay dhiiggii iyo qisaastiina hadda waxa weye tawreed waxaa ku taallay reer bani israa'iil dhiiggoodu inuu simay maxaa reer bani quraydi iyo reer bani dhiiggooda kala fadilay ma tawreed bay ku taallaa taas maya kuma taalo tawreed waxaa ku yaalla inaad simantii marka tawreed ayagoo dhexdooda ay taallo xukunkuna ku yaallo bay ka soo tageen aday xaakimkaa dhigtay waa arrin la yaab wa kayfa sideeba yuxakimuunaka xaakimkaaga dhiganaya wa cindahum ayaga oo agtooda altawraatu tawreedi ay tahay fiihaa xaal tawreed dhexdeeda xukmullahi xukunkii ilaahay u yahay uma kadibna yatawallawna way jeesanayaan min bacdi dalika xugum yeelashada xaakim yeelashada kadib bay jeesanayaan markay xaakim kaa dhigteen kadib bay haddana xukunkii aada soo saartay bay ka jeesanayaan wamaa ulaaika kuwaasi maynan ahanin bilmu'miniina mu'miniin ma aha waa wax rumaysan maaha laa tawreed walaa nebi maxamed iyo kitaabku watatoona ma rumaysna nima wax rumaysan maaha ila anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun liyaxkum biha alnabiyuuna aladiina aslamuu halkan baa marka waxaa laga guda galay kitaabkii tawreedaha in la ammaano kitaabkii tawrada ilahay soo dejiyey subxaana wa tacaala kitaabkiiba badan inuu ahaa ilaa annaga ayaa anzalnaa soo dejinay bu rabbi ihi subxaana wa tacaala altawraata tawreed baan soo dejinay fiihaa xaal dhexdeeda hudan hanuunin ay tahay iyadoo dhexdeeda hanuun u yahay wa nuurun iyo iftiin yaxkumu waxaa xukuma bihaa tawreedu waxaa wax ku xukuma annabiyuuna nebiyadaa wax ku xukuma aladiina nebiyadaasoo aslamuu hogaansamay yay ku xukumaan liladiina kuwiibay ku xukumaan haaduu yuhuudoobay waalrabbaaniyuuna kuwii rabbi loo aaneeyey ayaa iyaguna tawreed ku xukuma dadka waalaxbaaru culimadiibaa iyaguna ku xukuma tawreed saddexdaa qoloba tawreed bay dadka ku xukumaan waa nebiyadii aslamuu iyo rabbaaniyiintii axbaartu saddexduba tawreed bay dadka ku xukumaan bimaa shay sababtii bay tawreed ugu xukumayaan istuxfiduu laga xafidaa dalbay inay tawreed xifdiyaan dalabka laga dalbay daraadii ama sababtiis bimaa shay sababtii bay macnaha waxa weye ugu xukumayaan istuxfiduu laga xafidaa dalbay oo min kitaab illahi kitaabka ilahay ah wa kaanuu waxayna ahaayeen calayhi kitaabkaa dushiisa shuhadaaa kuwa ka marag abay ahayn ee falaa takshaw nnaasa dadka ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayadahayga hamanan lacag ha ku iibsanina qaliilan oo yar waxooga adduunya ha dhaafsanina waman lam yaxkum ciddii aan xukumin bimaa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey ruuxaan wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga unbaa alkaafiruuna kaafiriinta tawreed baan soo dejinay bu rabbi subxana wa tacaala kitaabka tawreed ah wuxuu watay hanuunin addoommada lagu hanuuniyey jidka saxda waxaa kaloo dhexdeeda yaalay tawreed nuur iftiin meelaha mugdiga iyo arrimaha dheeh galoo isku darmada iftiin kala saaro oo ummadda wax u iftiimiyana tawreed dhexdeedu ku jira tawreed waxaa wax ku kala xukumahayay oo sharci ahaan iyo diin ahaan dadka wax ugu kala saarayay waxay ahaayeen nebiyadii ilaahay u hogaansamay ambiyadii faraha badnaayee reer bani israa'iil ayaa macnaha waxa weye tawreed wax ku xukumi jiray laga bilaabo nebi muuse calayhi salaam laga soo bilaabo kitaabkii tawreeda uu kusoo degay ilaa laga soo gaadho nebi ciise calayhi salaam oo ugu dambeeyey ambiyadii reer bani israa'iil intaasoo nebi waxay dadka ku xukumayaan oo kitaabkii tawreed ah marka nebiyada ilaahay u hogaansamay baa tawreed xukumayay yay ku xukumayeen liladiina haaduu ku yuhuudoobay bay ku xukumayeen reer bani israa'iil iyo yuhuud bay ku kala xukumayeen oo ugu kala garsoorayeen ma nebiyada keliya xukumayay maya waxaa kaloo iyadana kitaabka tawreeda dadka ku kala xukumayay alrabbaaniyuuna rabbaaniyiinta waxaa la yidhahdaa waa kuwa rabbi loo aaneeyey oo alla u go-ay waa culimada caamiliinta
culimada diinta ku dhaqanto oo alla u go'ay hebel waa nin ilaahay baa la dhahaa waa ruux ilaahay ruuxu markuu ilaahay u go'ay baa la yidhahdaa rabbaani la yidhahda kuwaasina ayaguna tawreed bay wax ku xukumaan waxaa kaloo tawreed wax ku xukuma alaxbaar axbaarta iyaduna waa culimadii way macna culimadii reer bani israa'iil baa iyaguna tawreed dadka ku xukumi jiray saddexdoodaas waa nebiyadii rabbaaniyiinta iyo axbaartu saddexdooduba bulshadii reer yahuudeed bay tawreed ku xukumi jireen maxay ugu xukumi jireen waxay ugu xukumi jireen bima stuxfiduu min kitaab illah saddexdaa qolaba wuxuu ilaahay ka dalbay inay kitaabkii tawreedaha xifdiyaan nebiyada waxaa la yidhi kitaabka tawreeda xifdiya culimada rabbi u go'day ee caamiliinta iyo axbaarta oo culimada intoodii kale ah intaba ilaahay wuxuu ka dalbay oo laga rabaa inay tawreed xifdiyaan xilka tawreed in la xifdiyo la ilaaliyo la dhaqangeliyo la hirgeliyo la waardiyeeyo xilku iyagu saarnaa saas maana maadaama xilkaa ilaahay saaray bay marka xilkii gudanahayaan oo dadkii bay ku kala xukumayaan saas maana marka tawreed xifdigeeda ayagaa loo xil saaray baynamaa qur-aanka iyo diinta la xifdigeeda lina looma xil saarina ilahay isagaa subxaana wa tacaala isagaa qaatay saas maana inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun baa ilahi subxana wa tacala annagaa soo dejinay qur-aanka dikriga waxyiga annagaa soo dejinay annagaana ilaalinayna bu rabbi yihi subxana wa tacala cidda ilaahay uu ku ilaalinayo isagaa soo dirsanay maalin walba cid buu usoo saaraa ku ilaaliya uu ku ilaaliyo o ku waardiyey dawlad iyo culimo iyo dad u taagan oo waardiyaya buu ilahay subxana wa tacala u samaysanay saas wax la bedeli kara maa saas daraaddeed baa lagu guulaysan waayey qur-aanki iyo waxyigii ilahay nebi maxamed uu ku soo dejiyey maalinkuu soo degay ilaa maanta ilaa qiyaami saaca in wax laga bedelaa lagu guulaysan laaya waa la keri waayey si kasta intay gaala isugu daydo maxaa yeelay ilaahay baa xifdinaya wax ilaahay ilaalinayana nina ma bedeli karayo soo saas ma saas waxy hal xaraka haddii laga bedelo xataa yani wax soconaya ma kitaabka qur-aanka ad arkaysaan haddii hadda macnaha intay madbacdo samaystaan gaaladu ay inoo soo daabacaan kutub qur'aan ah oo wax ka bedela yihiin hal xaraka xataa hadday ka bedelaan u socon maayo ilmaha ugu yar oo 10 jir xataa aan dhannayn xaafidulqur'aan ah baa markaba soo saariyo xaraka meeshan ka bedelaba xaraf la bedela iyo kelimooyin meesha laga gooyiyo warkeeda iskaba dhaaf kan ilaahay baa marka ilaaliyo xifdiyey laakiin tawreed iyo injiil labadaba ilaahay ma ballan qaadin xifdintooda ee xifdintooda yaa loo xil saaray nebiyada iyo culimadoodii baa loo xil saaray ayaguna xilkii waa gudan waayeenoo hawshii loo xil saaray way ka gaabiyeen taasaa marka keentay tawreedna in la bedelo injiilna in la bedelo oo sidii ilahay kusoo dejiyey subxana wa tacala maanta aynaan ahayn macna saas weya waxaa marka rabbi yidhi subxaana wa tacaala markhaati bay ka ahaayeen kitaabka isagaa iyagaa la markhaati geliyey waa qolyaha saddexdee lasoo sheegay dadka marka ha ka cabsanina waxba ha ka cabsanina xukaamta laga hadlaya dadka xukaamta ehe diinta ilaahay wax ku xukumayow ha ka cabsanina dadka aniga iga cabsado aayadahaygana waxoogaa adduunyaha dhaafsanina oo xukunka diinta inaad dadka ku kala xukunto waxoogaa dheef adduunya ha dhaafsanin laaluush ha dhaafsanin magac ha dhaafsanin hunguri ha dhaafsanin kursi ha dhaafsanin waxaagaa waxaasoo dhan baa taban qaliilka ah ciddii aad ilaahay wuxuu soo dejiyey wax ku xukumini kaafiriinta wayaan bu rabbi subxana wa tacala iyaga un baa kaafiriina ilaa annaga anzalnaa waxaan soo dejinay altawraata tawreed baan soo dejinay fiihaa xaal tawreed dhexdeeda uu yahay hudan hanuunin wa nuurun iyo iftiin yaxkumu waxaa xukumaya bihaa tawreed waxaa wax ku xukumaya annabiyuuna nebiyadii baa ku xukumaya aladiina nebiyadaasoo aslamuu hogaansamay nebi oo dhan wuu hogaansan yahay laakiin islaamnimada ayaa la sharfaya islaamnimadu waa diintii nebiyadoo dhan liladiina kuwiibay ku xukumayaan haaduu yuhuudoobay mujtamacaadkii reer bani israa'iil oo yahuudoobay ila yahuudda macnaa waxa way iyagaa magacawd qolyahaasay ku xukumayaan waalrabbaaniyuuna baa iyaguna ku xukumay kuwa rabbi loo aaneeyo alla u go-ay waalaxbaaru iyo culimada reer bani israa'iil baa iyaguna ku xukumaya kitaabka tawreed dadka ku xukumay bimaa shay sababtii bayna ugu xukumayaan istuxfiduu la xifdi weydiistay istuxfiduu bimaa shay sababtii istuxfiduu xifdigiisa laga dalbay oo min kitaab illahi kitaabka ilaahi ah
waxa xifdigiisa laga dalbay ama dalabka laga dalbay iyo codsiga laga codsaday inay xifdiyaan kitaabka Ilaahay taas sababteed bay dadka ugu xukumayaan oo hirgelinayaan macna bima shay sababtii bay u xukumayaan ustuhfidu inay xafidaan la weydiistay oo min kitaabillahi kitaabka Ilaahay wa kaanuu waxayna ahaayeen calayhi kitaabka dushiisa shuhadaa kuwa markhaatiya intay joogeen markhaati bay ka ahaayeen ayaga loo xirsaaray falaa takhshawha casanina annaasa dadka ha ka casanina inaad ilaahay diintiisa hirgelisaan oo dadka ku xukumtaan dad cabsidii yeela idiintiini wakhshawni aniga iga cabsada yani dad baa ku dhaleecay waa lagu dacaayaday waa lagula dagaalamay waa lagu dili waa lagu xidhi inaad xukunka ilaahay qaadatay ama yaraatay kuuntiin cabsidaa ka bax wakhshawni aniga iga cabsada bu rabbi subxana wa tacala walaa tashtaruuha iibsa gadanina biaayaati aayadahayga samanan lacag ha ku gadanina qaliilan oo yar yani adduunyadoo dhan baa saman qaliil ah waxoogaa adduunye ah ha ku iibsanina aayadahayga oo waxay imaan kartaa aayadihii markii loo baahnaa inaad dadka ku maamushood ku xukunto inaad dhaafsato waxoogaa laaluush inay uga xilato waxoogaa qaraabtinima uga eexato inaad uga tagto waxoogaa magac iyo kursi raadin ah walaa tashtaruu biaayaati thamanan qaliilan saasaa laga wada waman lam yaxkum ciddaan xukumin bimaa shaygii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey ama yahuud ha noqoto ama nasaaro ama muslim fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkaafiruuna kaafiriinta aayaddan marka kufri baa lagu xukumay aayadaha dambana dulmi iyo fisqi baa lagu xukumi doonaa dadka ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa aan xukumaynin wa katabnaa waxaan qornay calayhim dushooda waxaan ku qornay yuhuudda dushooda waxaan ku qornay fiihaa tawreed dhexdeeda waxaan ku qornay ana nafsa naftii binafsi laf in loo dilayo waalcayna ishiina bilcayni il in loo fujinayo waalanfa sankiina bilanfi san in loo goynayo waaluduna dhegtiina biluduni dheg in loo jarayo waasinna iligiina bisinni ilig in loo fujinayo waaljuruuxa dhaawacyadiina qisaasun inay qisaas yihiin oo la kala goosanayo faman tasadaqa ciddii sadaqaysata bihi kaas qisaastaa uu mutaystay ruuxii sadaqaystoo iska cafiya fa huwa cafigaasaa kafaaratun dembi dhaaf allahu isaga waa loogu dembi dhaaf waman lam yaxkum ciddaan xukumin bimaa shayga anzala allahu alla uu soo deji waman lam yaxkum ciddaan xukumin bimaa anzala allahu wuxuu alla soo dejiyey ciddaan wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alzaalimuuna kuwa dhaalimiinta ah kitaabkii tawreedaha axkaamtiisii somaylaan soo sheegin yani waxa weeyaan reer bani quraydiya reer bani nadiir oo laba qoysoo yahuud ah ayaan dhiigoodu sillayn oo ninka yani quradigaa dhiiggiisu ka hooseeya iyo magtiisuba midka reer bani nadiir sidaasi tawreedi kuma olin baa laleeyahy tawreed waxaa ku taallay oo weliba reer bani israa'iil ku waajibilay naf haddii la dilo naftaa dishay waa in loo dilo naf male reer nasab dhalasho kursi magac darajo iyo dabaqo dhaqaale kuma xidhna naf hadday naf disho waa in loo dilo saasaa ku taallay haddii macnaha waxa weeye isha la tuuro waa in kii isha tuuray isha laga rito midkii sanka gooyey waa in sanka laga gooyo kii dhegta jaray waa in dhegta laga jaro kii iliga fujiyey waa in iliga laga fujiyo wixii nabara ah iyo dhaawacood isu geysataanna waa in la kala qisaasto saasaa ku taal saasaanu macnaha ku qornay sidaa markii lagu qoray kadib baa waxaa la yidhi ciddii sadaqaysato iska cafida oo inta laga galo yani mutaysta qisaas yani waxa weeyaan cid baa laga dilay ama nabar baa loo geystay dhag baa laga gooyey san baa laga jaray wuxuu mudan yahay inuu ka goosto qisaas markaasu iska cafi faman tasadaqa bihi fa huwa kafaaratu lahu dambi dhaaf bay u tahay markaas dambi dhaafay u tahay waxaa laga wadaa ilahay baa ugu dambi dhaafaya subxaana wa tacaala xadiis saxiixa nabigeena waxaa kaga sugan sal alay slam inuu yihi maa min rajulin yujraxu min jasadihi jiraaxa fayatasadaqu biha ila kafara allahu canhu mila ma tasadaqa bihi addoon jidhkiisa nabar la gaadhsiinayo ma jiro oo markaa iska sadaqaysanayo iska cafiyey ilaa hadduu jiro ilaahay subxaana wa tacaala uu dembigiisa ku dhaafaa intuu sadaqaystay in la eg oo dembigiisaabaa ilahay u dhaafaa subxana wa tacala saas maana yani ma waxaad sadaqaysatay 3 meelood meel hadday dhanta
يعني دبيغاغي صدح بيلود بيل با لوغو داف waxaad sadaqaysatay haduu yahay nis yahay dambigaaga niski baa lagu dhaaf waxaad sadaqaysatay haduu yahay naf dhan oo la dili lahaa badbaadinteeda haduu yahay in dambigaaga oo dhan ba laga dhaafaa laga yaab marka faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lahu dambi dhaaf u taaway macna arrinkaasi waxa weeyaan iyada oo qisaasta la heli karo ruuxu inuu goosto xaqiisa u heli karo yaa hadana ilaahay wuxuu jeclaysiinayaa in la iscafiyo hay'ale hadii dib lagu gaarsiiyay dibka ilaad ilaahay agtiisa geysato oo ruuxan kadaata iska cafido xiriirkiisa aadan goynin oo u badbaadiso adiguna ilaahay ajir kaga raadsato yaa ku fiican hadda tirada illaa waan goosanayaana waa lagu ogoli saasa macna leeyahay sidaas tawreed bay ku taal tawreed ha ku taalle in lagana sida way xukunka tawreed ku yaalay ayaa diinteenu la qabtaa saas macna xukunka tawreed ku yaalay ayay shariicadeenu la qabtaa in nafti loo dilo xubnaha hadii la jiro la isu jaro yaani wixii la wareey la isu geysto la iska goosto tafaasiil badan baa ku jirta kutubta fiqiga ugu noqonaysa iyo kutubta xadiista laakiin mabaadiida guud saas cadaalada amaana وكتبنا واجبنا عليهم وكتبنا وقرني عليهم reer bani Israa'iil dushooda waxaan ku qornay عليهم على الذين هادوا كوي يهودوبay dushooda waxaan ku qornay fiiha tawreed dhexdeeda أن النفس نفسي بالنفس نفس لو دلي والعين إشيل بالعين تقفى بالعين إلبا الله فجل إلها الروح فجية تيسا وبالا فجل والأنف سنكينة يعني والعين والأنف سنكينة بالأنف سن أيا لو قيني والأذن أكتينة بالأذن يدنا دقبا اللوشري والسن إلقينة والله فجل بالسن إلق سببتي والله فجل والجروح داوعينا إيا نوردنا قصاص وكالقص قصاص وقصاص شو إلا كالقص بس حتى هذا الله كالقص ساسوي معنا فمن تصدق عندي صدقيسته أو اسك صدقيسته اسك عفدا به قصاصته فهو كاسي كفارته تصدق سوى لما إلى ترى هذا واسك عفي أو كمربه مجل كمربه مر قصاصني وتأوفي عنه إلى ترى قصاص ديوان عفية مج هلا يسيه وحول هلا يسينا أيضا هو نوع عفية لكن مده ولا مجاركه فمن تصدق عندي صدقيسته به قصاصته فهو التصدق يا صدقيسك كفارة الدم له السجوية ومن لم يحكم عندي عن حكم بما أنزل الله وحي إلهي سودة شيء فأولئك قواسهم يجوا الظالمين يجوا بعض الظالمين أنت تلمام إلهي أصلا سبحانه وتعالى أفرسه dadka ilaahay diintiisa xukminteeda ka tagay kaafiriin baa la soo yiri hadana waa zaalimiin ba aayadani ku khatimtay aayada damana faasiqiin baa loo doona waqafayna waxaan raacinay waxaan qadaad raacinay yani ala aasaarihim reer bani israa'iil nabiyadoodii raadkoodii waxaan qadaad raacinay raadkoodii ay mareen waxaan raacinoo ka daba geynay biisa ibn maryama ciisiina maryama مصدقا حاله يهمد رمينيا لما بين يديه وحي يكسيك كهرية ومن التوراة توراة توراة كهرية الرمينيا وآتيناه وحا نصيل النبي عيسى الإنجيل إنجيل ما نصيل فيه حاله يها إنجيل لحظة هدى لهنون حاله ونور يفتين ومصدقا حاله يها إنجيلي مثل رمينيا لما بين يديه كي كهرية ومن التوراة توراة كهرية إنجيل رمينيا وهدى الهنون الحال يهي وموعظة وانو للمتقين كوا على كعصد لقوة أنبياء بني إسرائيل يرى بني إسرائيل وحي إله الشروع يوسو الدكشي لنا هي أحكام أيها وحا لقبين يا ولقو ختمية رى بني إسرائيل الأبيض وذا نبي يقول تبهي نبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيها نكدو القيمين ربنا سبحانه وتعالى ورادكي نبينا reer bani Israa'iil ay mareen baan isagana marino ka daba geelibale khafayna waan qadaad raacilo shaygu markuu gadaal kaaga yimaado qadaad kaaga ka yimaado ayaa la yiraahdaa qaftiga la yiraahdaa macna gadaal baanu ka raacilo Ciisa ibn Maryam wuxuu rumeeyay tawreedii ka horeysay tawreed ayuu rumeeyay oo reer bani Israa'iil tawreed buu ugu yeedhay waxaanu siinay Rabbi subhanahu wa ta'ala injiil baanu siinay waa kitaab إنجيل دحدنا وحى أها هنولين إيا النور إفتين هنولين ضدك اللغو هنولي يجيبك إله الرالكي
iyo nuur iyo iftiimin oo dadka nolosha u iftiimiso shubahaadka iyo waxyaalaha shakigu ka gala iyo mugdiyada u iftiimiya injiili waxay ahayd tawreedii ka horreysay bay rumaynaysay injiil iyo tawreed laba kitaab oo kala dambeeyey bay ahayd laakiin wax weyn kumaysan kala gedisnayne axkaam aan badnayn oo laga bedelay tawreed ayaa injiil ku tahay saas macna waa kan soo maray waliuxilla lakum bacda alladii xurrima calaykum nabiyullaahi ciisa calayhi salaam isagoo odhanay wixii laydinka xaaraameeyo oo tawreed lagu xaaraameeyey qaarkii inaan idiin xalaaleeyaan u imid qaar waxyaalihii xaaraamta ahaa ee tawreedi xaaraamaysay qaar ka mida inay injiili xalaalayso unbaa loo soo dejiyey wailaa labada kitaab saa uma kala foga saas way macnaha ayib saas daraaddeed baa hadda yani waxa weeyaan ay nasaarada iyagu yahuuddu maba rumaysna kitaabkii dambe injiil maba rumaysneen laakiin christianku wixii uga dambeeya waxay u yaqaanaan laba kitaab oo cahdigii horiyo cahdigii dambey dhacan labada kitaabo macnaha maraajicdoodu ka mid yahay u noqdaan macnaha saas weya marka laba kitaabo yani ka dambe uusan kii hore wax badan ka bedelin bay ahay wahudan hanuunna waa ahaa kitaabkaas hanuun wuu ahaa iyo waano dadka muttaqiinta la waaninayo la hanuuninayo buu aha waqafayna waxaanu raacinay silsilada wax loo soo wada u fiirso yani waxaa laga soo bilaabay nebi muuse iyo kitaabkii tawreed ahaa waxaa la marinaya oon hadda ku dhex jirnaa nebi ciise calayhi salaam oo reer bani israiil ugu dambeeyey nebi ciise yaa ku xigay nebi maxamed iyo kitaabkiisii baa ku xigay waa aayaadka ka dambeeya imaan doona tartiibkaasoo loo wada kullina waxaa layna barayaa kutubta ilaahay uu soo dejiyey iyo rususha uu soo diray waxay ummadaha ula yimaadeen iyo mujtamacaadka waxay ahayd war kitaabka ilaahay qaato isku xukuma haddaad isku xukumi weydaanna waad gaaloobaysaan kulligood saasay la wada yimaadeen waqafaynaa waxaanu raacinay calaa aathaarihim reer bani israa'iil ambiyadoodii raadadkoodii waxaanu raacinay biciisa bni maryama ciisihii ina maryam aha musadiqan isaga oo rumaynay limaa shaygii bayna yaday hortiisa ahaa oo min atawraati ah wa aataynaahu waxaanu siinay alinjiila injiil baanu siinay fiihi xaal uu injiil dhexdeeda yahay hudan hanuunin iyo wa nuurun nuur wa musadiqan xaal uu yahay injiil mid rumaynaya limaa shay buu rumaynayaa bayna yaday hortiisa oo min atawraati ah tawreeddii ka horraysay buu rumaynaya wahudan xaal uu injiil yahay hanuun xaal uu yahay iyo wa mawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsan muttaqiinta xaal uu yahay hanuun iyo yani waano iyo caqli celin uu yahay macna walyaxkum ahlu linjiil haddii injiil ilaahay soo dejiyey sifaatkaa iyo tilmaamaha iyadoo leh qoladii injiil loo soo dejiyey sidanaa lagu yidhi walyaxkum ha xukumeen ahlulinjiili injiil dadkeeda bimaa shaygii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda uu kusoo dejiyey arrinkaa dadkaan ku kala xukumeen waman lam yaxkum ciddaan xukumin bimaa anzala allahu wuxuu alla soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga keligood baa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxaya ree injiileed iyo nimankii loolan jiray yani nasaaro ayagana waxaa lagu yidhi kitaabka injiila waxaan ku soo dejinay isku xukuma isaga ku kala baxa maxkamadaha dhigta dawladuhu haydinku maamuleen sidaasaa le haddii sidaa la yeeli waayo ninka ilaahay wuxuu soo dejiyey wax ku xukumi waayaye kuwa faasiqiinta ilahay daacadiisa ka baxay hadalkii oo lagu yidhi yahuudda unbaa nasaarana ilahay ku yidhi subxana wa tacala waa un macnaha ilaahay diintuu soo dejiyey iyo kitaabkuu soo dejiyey dastuur ka dhigta saas weyaan waliyaxkum ha xukumeen ahlulinjiili injiil dadkeedu bimaa shaygii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda uu kusoo dejiyey oo macnaha waxaa ka mid a waxa injiil lagu soo dejiyey ku yaallay waxaa ka mid a nebi maxamed nebinimadiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo kitaabkuu soo dejinayo inuu xaq yahay iyo markuu yimaado kitaabkaasi injiil in la nasakhay saas daraaddeed waxay ku qasbanayeen oo injiil falaysay nebi maxamed markii la soo saaro inay injiil dhaqankeeda intay ka tagaan kitaabka qur-aanka qaataan wixii injiil dhexdeeda ku yaallo inay dhaqan geliyaan oo xukumaan loo baahnaa tadaa ka mid saas macana waman lam yaxkum ciddii aan xukumin bimaa shaygii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay marka hum lkaafiruuna iyo hum lzaalimuuna iyo hum lfaasiquuna labada aayadoodii hore yahuud bay ka hadlayaan aayaddanna waxay ka hadlaysaa nasaaray ka hadlaysaa
طيب لكن أحكام تني يهود النصارى كريه أمتها له عيد والميطالة لأنه وحوي شرع من قبلنا شرع لنا وحي الشروع دي أمضيه هنا كتبته ذو قصة ودكشي إلا قنا شرع من إناطهي هذا الشرع غير مبدلين وحي كتاب الشيخ أو أن لبدلين أو أن يعني وحوي بياشا لغا صاري الشرع قروي عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي أرددس عطاء هي طاووس وحي ليه وحال لقوة بياشا قال لماذا ديت لغا قبل حيماها وكفر دون كفر وقال لما السكة كفر السكة معنا يعني كفر قال لوقع ونوقع سوا كفر ديت الله قبل حلقه قالوا هي كفر نصوص تقاركم أي استعماشه ونولد شيده إلهي النعمدي سيبه كفري دنبي وين لو قلي لكن الإسلام في كونه تاني مركا آياتها ساسا لقوة أبو ليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكن تفاصيل فربنا بعلمه القليلة يعني روحها هدوسة إلهي دينتي سوحكوكم بالقرب قالوا بيا مرنا قالوا بيا ودين تطبق بحيا مرنا وحويان كمان بحيا وحو النقرة يا والدنبي وين كبيرة وين بالنقرة يا إسلام مرنا لقوا بحيا روح الشرعي أنك إلهي أهيد دجستا كي إلهي لماشا اسكدها اعتقادية شرعي إلهي سيدا الله يسوح حكومي كرو كما إلا يسوح حكومي كرو أما كلمة في عيه كي إلهي أما كإلهي ما أنت إنو صنوشا لسعون كريم وأدوك اللوح حكومي كريم سيارها في الروح الاعتقادية يسووا قالوا بيا باتفاق العلماء مرة وجهه تاس بإجماع العلماء قال في إسلام بوضع معايا بحاجة لي الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وحده سوى قولنا نيكي لو نجد جنكيز خان كيمت يعني وحوة مشرق كيمت حقها كسودوني عالم الإسلام لإن بدن قصري شرعي وحو كدق من الأورنج ياسق الأورنج شرعي وحا لغا أروريه أو ككيري دين الإسلام كقاربو كسوقاتي يهودية قاربو كسوقاتي نصرانية قاربو كسوقاتي قارنا أسلام مسكحدي سيجيب في سكلين كتاب نوع عاصو قلو دادكي سي أغتغي كتاب كاسي اسكو حكومة يعمل إسلام لمنا والشيغانة يعني وحو ليه ابن كثير عليه رحمة الله علمنا الإسلام هو حي اسكو وافقين ذكر رميسان ياسق إنه حقي ولا اسكو حكومي كرا إنه قاليه إجماع من علمنا كل قدر وهذا الكاسو كان يسوق قولنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تفاصيل آدم فربنا المسألة وحا كلا علمنا معاصرين إيا علماء مرسين تبا متأخرين إيا معاصرين إيا سلف إنتبا تفاصيل فربنا باقوش مركي كتاب إلهي وحان أهين أو ليسكحكم مر قال لنا إنه قطار دين تالا قبعا مرنا قال لنا ما هو يكسو كيساي هو الدنبي وين وحين نغان كرتا الدنبي وين وكل حتى تصالة سوق على له روح الدين إلهي بالرميسين محكمة دي سنة وحي أفرطة إلى دين إلهي وحكوحكم دين إلهي لكموسى تجد لكن مرمربا وحوقاه القرية لا لوش بوقات لا لوش يربوقاتي والله وجه روح بوك لا يحضي ما قالوا لي ما قالوا لي أما معها هو يحضي قرات سنين أما صاحب نمو الروح أبو يحضي ما قالوا لي ما دام شرعي إلهي الرميسية ولي إنه يهي بيتك اللي يسكت حكومة يسوي الرميسية إنه الدم قليل وحما يسمون بنانين والروح مسلم والدبابين لكن ليك الدستور كي يمنان كي دولة أو من انتو بدلي شروع كلميشي قليل شرعي إلهي نفقه روحي إلهي وشرع إلهي ليسكت حكومة الدلها يا أم حرية رميسان إن كي إلهي ما أنت أوسل أدوك مكسر عكرين والله بهرين أما لقد في عين الشروع قانتاي أدوك كسر بيرتاي كاسي نيكي كشك يقال لمدي تسرع قال تاسي معنا واسكعني قال لمدي تسرع ملك محايا الإله الشروع ذا وصدتي من لدن قرضي التوراة وصدتي قرضي إنجيل وصدتي كتاب القرآن هذا أتجي دونا أيضا كان دونا كل إله وصدتي إلى الدولة الحكومات إلا يبوك لبعه محكمة الله دولة الحكومات وإله يقول الله سبحانه وتعالى نينك إنتو إسكري حيكوك لبوس كيسي سواق الشرعي والنظام لما يسترى الميجاق الشرعي سجل فوقيه ولا تقال هذا واحد الإسلام بدي يسير له بدوني مرة لك ودونه الإسلامي دي عجبه وحقوده دونه بكير يا معنا سنة غريبة ولا يعملوا معنا ساسويا مسألة مركة تفاصيل اللي قليله أو وحي اللي قالوا لي وحا اللي قالوا لي إلا الله اللي ما قالوا لي تطرق وحا دون تحكم إن ما قالوا لي سيد نظام كان دون تدجسم ما قالوا لي سيد والمرجئوي
عقيدة المرجئة والتاس إلا يلاهدو الحكم بغير ما أنزل الله وقلنا وكفري أسألنا وحوي والرأي الخوارج رأي الصح للسلف كأي كنت قال يا أيمد وحوي إن مسألة التفاصيل لقليو قارن كفر بالنقل قارن كفر واقصوكية كبائر الذنوب بالنقل يا معنا تفصيل كأي لقليو وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وأنزلنا واندجنا إليك أذيك كبسو دجنا الكتاب كتاب كيبا نكبسو دجنا بالحق سوى حق له مصدقا لسوى حال يهمد رمينيا لما كي بين يديه هرتساءها أو من الكتب من الكتاب كتبتي كون رسيب الرميني وقرآن الرميني كتبتي كون رسيب توراة إنجيلا هي قوي كلامه ومهيمنا حال يهيمن إلالياء عليه كتبتي كون رسيب إلالي أما مهيمنا من لغو آمني عليه كتبتي كون رسيب لغو آمني فحكم حكم بالي لنبيه بينهم ضدك نحن وحد كوكا لحكم ساعة بما أنزل الله وحي إلهي سودج ولا تتبع هنا الرائل أهواءهم هويك وذا الرائل وحي لفتون الربطو هكو الرائل عما جاءك وحي كوي من أمل الحق حقها كالرائل هولو ذا الرائل حق كوي منها كالرائل لكل مدول بعض وأمضاها كمدا جعلنا وحم يلي منكم حالوا إذيك كمدها شرعة شريعة أيام يلي ومنهاجا يجد عبد ولو شاء الله هدو ألا دول لها لجعلكم وحي لكي لها أمة أمد لكي لها واحدة أو بدعة ولكن ليبلوكم ولكن يعني شرع لكم هذه شرائع لك لقد يسوحوا إذن كتلي ليبلوكم سدوا إذن امتحانوا فيما آتاكم وحي إذن سيسوا إذن كم امتحانوا درادة فاستبقوا أكل هرمرة وأنقتم الخيرات يعني أكل هرمرة فاستبقوا أترتم الخيرات كأترتم إلى الله حق الله يرجعكم نقد كنوع هذا جميعا حالة الشيء فينبئكم الله وحيدين والرضي بما شيء إذي كورم كنتم رهينين فيه دحديث تختلفون كويسكم خلاف سنة توراة الإنجيل مركي لقصوا هذا إلهي وحي أسود الشيء الوشة إلا يسكو حكما عدي حكومي وإذا حكم كأولي هاي الشيء أي واحد لو من كتاب القرآن كأولي وكو خاتمي كو جمجمي كتبتي حقيقة كإيماني سيونا وحنا كو سود الشيء النبي محمد وكتاب استوى حقوت بعد الموت قصوي كيسية شيكوي كيسون وارون أحكام كيسون عدالة بيكو صليسات كتبتي إسايا كوهر رئيسينا والرمينية كتبتي هراء التوراة إنجيلها وحا كقرأ إنه كتاب كالإيمان دون مركو يميد ومرخاتي لأنه وحا هراء أسي الشيكتي ساقو الشيكتي هدو أمعو سو مرخاتيكما والرمي الساقنا توراة إلي حق أهيد إنجيلي إلي حق أهيد مددك الشيكي مصدقا لما بين يديه من الكتاب وجنسي وكتبتي هراء نبع لقوة وحاكروا تلبابيه سكمنا ومهيمنا عليه هيمنada waxa laga wadaa halka sida mufassiriinta salafku ay badayeen huwa al-amin ala al-kutub as-sabiq kutubti ka horeyso dhan midka lagu aamino waysan isaga ayaa bedelay isaga wixii waafaqa oo tawreed iyo injiil ah wixii waafaqsan quraankan ayaa sax tawreed iyo injiil wixii kitaabkan khilaafsanna baadil saas wixii kitaabkan waafaqsan ayaa xaq ah wixii kitaabkan khilaafsanna isaga kala xukumaya مهيمنا علماء السلف وحي كفر سنيان وحد هذا الشاهد ومد برخاتئة من إلالية أما حاكم مد كان يعني حكومة هيو وحي إساق يعني وحي إساق ميزانوا إساق وحي وافق واحد وحي إساق خلافه توريدي إنجيلا وباطل ومعنى ما هدي كتابك في المامها لنكو سودتش للمي وكو سودتش لي ضدك كوكا صار وحي إلهي سودتش فاحكم بينهم بما أنزل الله وحي إلهي سودتش ومدى كوكا لسار ونبي محمد وكوكا لحكم هودوا لنا هكرا وحي إلهي كو حقي سكاقي من حق إلهي كو كاري حق إلهي كاقي من إنتاد كتبت هودوا لنا الرأي سيئوا الروانا كو الرأي نقلنا أي وطانها كو الرأي يعني وحويان سيئوا الدوليان هالرأي الهودة تصلنا هودة سيئنا إن الشيء نفتاضوا أي رب أتشعشها بلنا إنتاد صار رعبه حقي حق إلهي كاقي من كتب mid walba oo idinka mida waa umadahaasi waxa musiinada rabbi subhanahu wa ta'ala shir'atan wa bilhaja shir'ada iyo bilhajka waxa laga wadaa
الشرعة بمعنى الشريعة شريعة أحكام نظام مقالها إيه كسابسا يعني كسابسا قيسكي نظام أحكام برمسود الشلي منهاج كل واجدك عقو وحال لقوة الرماها عقيدة إيه مبادئ أساسية تاسو معنا وبدوا بطاطية لكن رسوش وحي كم من إسنايين حق مبادئ أساسية حق شرائعنا هي أحكام تسوي كوكلة إسنايين وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات يعني هؤلاء لا يسلقوا عرور طبعا الله يقول صلى الله عليه وسلم هذا من أنبياء الله هؤلاء لا يسلقوا معناه الوحويان دين تلدوا وابد أبوه وكالكبسين لكن عمله ويويك وكالكبسين لكن أبوه وابد معناها التوحيد كي مبادئ أساسية اسكمت بانو كنعي لكن أحكام تبانو كوكلا قدسنا يصير عرورته ويويك وأي كلاملين اسكو أبها أو كليتو صاصي معنا مركب منهاجة وحاصل هذا وتوحيد كي مبادئ أساسية كتبت أي استغمتك كأهاي شرعتنا وشريعة إيه أحكامته النبي والبا إيه كتاب والبا شريعة مرح بنان حلالين إيه حرامين اسكي ومرح بنان بلا محايا لما سألنا حلالين إيه حراميته وقت واحد مصلحة كتشرت إلا حرامين أيها هذا إيه كتشرت سافي سبب الدشاء لكن الرمان اسبب لباجر ولي إلى مالك إله الدنيا وأبوري إلى أنت كتاب في وجود بين لمسه الدشيني أو حبيس كبدلين الرمان هو وينه كتبت أي كميد إسكامي هو معنا مركا أمة والبا وعن أصمين شرعة ومنهاجا هذو الله دور الله سبحانه وتعالى هل أمض بذلك الله هل كتاب الذي سودت الله هل رسول الله الذي سودت الله هل أمض الله نقول الله إليه لكن إله مدور سبحانه وتعالى أمضك للدول كتب كالدول رسول كالدول بالذي سودت وحصل الله يلي إلا إذن امتحانه أو بالفيرية أمضها مدة أغفي عنه ما أمة محمد بأغفي عنان دوت ما قلبي النبي موسى الله دره في إعلان دار ما إبراهيم كون الله دره وحى نبينا الله بديه كتبتنا الله بديه إلا بالابتحام شرائعنا الله كلا قيبي وشرائع فربنا الله وجود الجنس سبحانه وتعالى إلا إذا امتحانه بالله فيري إلا إذا تجابي ولا إذا تشربيه مرحبا سايده فاستبقوا الخيرات خيرات كمركا أولا قتما أكرا أرتما حق إلهي بقوة النغض وطانوا اللي دين عرل waxa aad isku khilaafsantiin ilaahay baa idin ka warramito ilaahay baa idin kala saari doona baarak hortiisa ku kala baxaysaan maxkamadda ilaahay ayaa adoomada kala xukumi doonta nin walba hadda waa isla qumayay ka tawreed haysta ka injiil haysta ka quraanka haysta ka mabaadi kala baadil haysta nin walba qumariisa qorta ugu jira laakiin yaa saxsan maxkamadda ilaahay baa kala saari doonta subhanahu wa ta'ala saasi macna wa anzalna wa'adna ilayka adiga xaggaaga nabiyo alkitaaba kitaabkii baan kugu soo dejinay bil haqqi isagoo xaq xambaarsan مصدقا حاله يهبط رميني لما شيء بين يديه هرتيسا ومن الكتاب كتبتي كهري اسمه رميني ومهيمنا حاله يهبط حكوميا أما من لبو آمني عليه كتبتي سيكوريس يعني على الكتاب كي هذا كهري معنا كتاب ومعنى الكتب لولتش هذا يقول نقرس فاحكم حكم نبيو بينهم ذاتك النهل بما أنزل الله وحو إلهي سودة جدد كل حكم تاس ذاتك وكرا قرصون ولا تتبع هنا الراعي أهواءهم هواي كود وحيالها النفتوض أي تعشها الراعي عما شيء حقها كالراعي جاءك كوي من أبن الحق حق كوي من هواء كالراعي لكل المدول بوحنوية لكل المدول جعلنا وايا أو منكم حالوا إذيك إذيك مدين لكل أمة والبوحنوية الأمة والبا أي جعلنا يلي منكم حالة إذيك متاي شرعة بانوية شريعة ومنهاجا شد عد بانوية منهاج هو شد عد شد عد معناه يعني مبادئ أساسية أو إسكعب أو يجعل شكل كتير شد عد ولو شاء الله هدو ألا دولي لها لجعلكم وحي إذي كدق لها أمة واحدة أو بدعة هل أمة بابا الذي كورا دق لها هدو ألا دولي لها أو هل كتاب هل رسول بابا الذي صدر لها لقد صدر بالله مالك لنا أبوري إلى هذا هل رسول بهدو الله دوره صور الدين هل أمة بينه الله ولكن ليبلوكم باشا وحا كتيرا ولكن شرع الشرائع المختلف شريعويك كلا قد يسموا إلهي تشيدي معهم تشيدي ليبلوكم إنه إذن امتحانات درادي فيما شيء تحدي إنه إذن كل امتحانه آتاكم إذن سيء أو كتبتها قروا الله والكتاب كيريسي ولما قتال الله فيرين يا ولد شربية فاستبقوا مركا أوكرا هرمرا أو أوبرتما الخيرات خيرات كأوبرتما يا اللي كبدل
tawreed iyo injiil qolyihii la siiyey iyo kuwii kale kutubta la siiyeyna idinka fiicnaade oo kitaabkiina dhaqankiisa qaato oo hirgeliya kaga fiicnaadoo khayrka uga hormara bal ilallahi xagga allah ayuu marjicukum noqodkiinu ahaaday jamiican xaalad idishiin fayunabbi'ukum wuxuu idiin warrami alle bimaa shaygii kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa iskhilaafsan waxaad isku diidaneen oo isku dabamarsanaydeen allah idinka warrami macnaha waa laydinkala saari macnaha waa laydinkaa xukumay wa an ixkum xukum baynahum dhexdooda kala xukum nebiyow bimaa shaygii ku kala xukum anzala allahu alla uu soo dejiyey walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacin waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka inay ku fitneeyaan can bacdi maa shay qaarkii inay kaa fitneeyaan anzala allahu ilahay uu soo dejiyey ilayka adiga kugu soo dejiyey inay kaa fitneeyaan ka taxadar fain tawallow hadday jeesadaan oo ilahay xukunkiisa ay ka jeesadaan faclam waxaad ogaataa anamaa yuriidu allah allow inuu doonayo uun an yusiibahum inuu asiibo kuwa bibacdi dunuubihim dembiyadoodii qaarkood inuu ku asiibo waina kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka midana lafaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay waa lagu soo celiyey soo kala xukum lama dhihi nebi maxamed oo dadka oo wixii ilaahay soo dejiyey ku kala xukum aayadiisa iyadiin ba haddana lagu celiy wa an ixkum baynahum bima anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey nebiyo dadka ugu kala garsoon oo dadka ku kala xukum dadka hawadoodana ha raacin hawada waxaa laga wadaa nidaamyada kale iyo dastuurada kale ee ka ilaahay khilaafsan baa kulligood hawa ah kuwa laleeyahay iska jirna waa kuwa saas macana ama gaalaha ka soo jeedeen oo gaalo inta laga keensaday ha laga soo qaato waa hawo weliba hawadaaba isdhaantay ruux muumina xataa hawadiisa hadduu aan la weyroonan leh hawada gaalaha ahaato ama islaamnimo ha sheegtee dhaqanka uu dejistaayo waa hawadiisa hawadooda markaa raaci baa laleeyahy haddii mid aad dejisatay ay tahay oo xeer jajabahoo adigu aad dejisatay oo samaysatay uu yahayna isaguna waa hawo wax kastoo ilaahay nidaamkiisa khilaafsani waa hawo bini aadan iyo makhluuq uu dejistay kuwaasaa laleeyahay markaa raacid kana digtoonow baa laleeyahay nabiga sal alay waslam oo iska jir in wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaarkii ay kaa fitneeyaan yani waxa weeye ama xoog ama hanjabaad ama maahe macnaha waxa weye shukaamin iyo laaluush iyo xoolo ama yani wuxuun intay kugu fitneeyaan in wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaar ka mida ay kaa kaxeeyaan oy kaa fitneeyaan taa iska jir baa le nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh kama suuroobayso oo ilahay baa ilaalinaye laakiin dadka hadalka u dhacayo waa inaga dadka hadalka loola jeedayo waa inagaa layna leeyahay kitaabka ilahay iyo wixii ilahay soo dejiyey xukunkiisa iyo inaad qaadataan oo dhaqan ka dhigataan maxkamadaha dhigataan dawlad ahaan isugu xukumtaan yaan laydinka fitnayn oo gaalo yeena idinka fidnayn mar rabaan inaad isku xukuntaan macana sidaasa laleeyahay wa an ixkum xukum nebiyow hadday jeesadaan oy ka jeesadaan ilaahay xukunkiisa waa dad uun ilaahay doonayo inuu dunuubtoodii qaar ka mida ku asiibo ku ciqaabo dembigay galeen muxuu yahay waa kitaabka ilahi laga tago ninka kitaabka ilahay lagu karilayahay waa nin uun ilaahay ku talagashan yahay dembigiisa inuu ku ciqaabo dunuubtoodaa la rabaa intay ku dhintaan in ilahay u ciqaabo subxana wa tacala ama adduunkaba ciqaabta loo soo dadeji in badan oo dadka ka midana ilahay daacadiisa waa ka baxeen kitaabka ilahay inay isku xukumaanna waa ka tageen wa an ixkum xukum nebiyow baynahum dhexdooda bima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey ku kala xukum walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacin iyo waxyaalaha naftoodu ay rabto waxdarhum ka digtoonow oo ka taxadar an yaftinuuka inay ku fitneeyaan can bacdi maa shay qaarkii inay kaa fitneeyaan anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey ilayka adig kuu soo dejiyey adiga xaggaaga wuxuu ilahay usoo dejiyey qaarkii inay kaa fitneeyaan ka taxadar fain tawallow hadday jeesadaan faclam waxaad ogaataa anamaa yuriidu allah alla inuu doonayo un an yusiibahum inuu asiibo bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkeed inuu ilaahay ku asiibuu doonaya dembiyada qaarkeed inay ku dhintaan oo ilaahay ku ciqaabo unbaa la rabaa mar hadday jeesadeenoo ayna doonayn kitaab ilahay inay isku xukumaan waina kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka midihi lafaasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeedii miyay yabquuna raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi alla xaggiisa xukman xukm liqawmin yuuqinuuna qowm yaqiininaya ilahay subxaana wa tacaala yani sharcigiisa iyo masaalixda ku jirta dadka yaqiininaya ilahay xukumkiisa yaa uga wanaag badan axkaamta bini aadamku ay isku xukumaan baa laba ah
حكمنا وحكم جاهلية حكمنا وحكم إسلامية حكم كجاهلية ومد والبؤ كتاب إلهي السنة النبي خلاف صلوات ربه وسلم عليه وحكم جاهلية مركب حكم جاهلية هذين يعني السبب كي إلهي ويانا هو إحنا يعملون محاد شيء حل إيا كوناسين السبب بدلنس انت سو آيات أولا ليالوحي نقرح الليان إلى الشرع إلهي اللي يرونه سبحانه وتعالى دين إلهي اللي يرونه نعمه أحكام تيرو إبن إلي نقارنه قيب تكساسا مقالها إلي نقارنه قيب تقويسك إيا كساسا غيرك إلي نقارنه قيب تدولد إيا سياسة كساسا إلي نقارنه قيب تكساسا حريرك برشد إلي نقارنه قيب تكساسا محكمتها إيا الدستور كيالا إلي نقارنه سيبه إلي نقارنه وحينون نعم همينات مجر سيب والبهدي اللي يسول القوينه شرع إلهي وحامل هلماي يا إلهي دي دمرك إلهي ورستاقا لما قولا إلهي ورستاقا لما قولا با إلهي دين تزينه ورستاقا إلهي نسكحه كلنا قولا وقولا قال الله قال وحي إلهي ورستاقا تا الدين إلهي إلهي نسكحه كلنا وحي وياه وحي يدي دينهم وحي ننقلين أيها كولا وحان أهين إن أدوك اللغو أركو oo koola ceebtiisii soo baxo ma rabaan saas daraaddeed bayna ugu diiday haddii maanta diinta islaamka faraha laga qaado bulshooyinka islaamku inay isku xukumaan waxaa dhacaysa inay ka nolol fiicnaadaan bulshooyinkii gaalada ka nabadgelyo fiicnaadaan ka dawlado iyo siyaasad fiicnaadaan dhinac walba marka la fiiriya kaga fiicnaadaan gaala markaasi ma rabto oo waxaynan doonaynin inalama rabaan horta wanaaggaasi diinta ilaahay ka helayna inalama rabaan وكان صومرنا حسد درادي إنه لرهن حاسدين ويا مرة تامر ومد الله ذلك نظام كولا الله أركي حلالتي سعيدتي صباحس نظام كولا حلالتي سمانت أدوك وهو أركلائي هاي نظام كلام تشرب الله أقول بأي صباح بل هل الدائق ومبادئ أفكار تنتفرها لك قادم مركا هل يسو في ريوسي حرقة هل يسو قرابه أنه وحا مهينا نظام كالرجال بيت ككفي عنه كعدالة بدن سوى البوغة ميسترا أيام مهينا لكن حرينها نروسي يعني ذلك تصلي عالم عن أمه تشيني حرينها نروسي حدي أدون كنتو سوى وقادوا مرة جدوا ومعنا وحويروا وعصي الشريم لكن إلا يسعبريو أولا إذا أنا مصري كرتان كما تقمي كرتان سوى البقى أنا هالشباب أنا عكسين أما معناه وحوى المار في دعايات يبان سوى البين الواحد السنة والدين تنتداتا أي كهر يمادان إلا يسكحكم أي وحي أركان إلى المصلحة ضي الدنتو بكجرت ساسي معنا تاسي وقرارة قال لا قرارة اللبادة إلودي داني وحوى إلى يسكب لغنو وقليها يعني وحوى قال لا انت بدل الله سعودة قال الرعيلة وأيقنا أي لتهي حدي دين تاني اللي يسكحكم إلى كرسي قول وايهي مدعون وايهي أيضا وحنا الشيء لا والدين تمرع إذا كقادمس كرسي قال إذا كقادمس أو إن ماذا إذا السلطان ماذا إذا كقادمس أريد أو السلطان أو كرسي قال السلطان مدحوينه هو وزير دستور كالقاضي ما كرسي على دين كقاد كرسي على هيسو هذا معناه هو مساق قال أكثر وغير هيسو لكن دين الله سبحانه وتعالى فتك كلهم قال إن المنام كي إيه دستور كي إيه بقى أن وحبك تشيرين بقى كل بيقول قول الله وضع قرآن مركة إنه ديدا إنه جرى وإنه جه له جهلي إيه أقوم ضره إيه معسميه إيه إنه هو ديار السجاع وحلا وإيه اللي روش يجوا إنه البت كلهم وحلا وإيه اللي روش يجوا إذا عاد كم قال تلفزيون كله ينجحه دين تاني اللي نقدره علومات اللي نقدره كي واحد جرنا يو حتى على هور دين إله النظام قام متشينه كافة اللي نقدره واحد اللي يمارس وأرجع يسوع ميل مكسر شراء ومركوبة قطع عينيه بالله حلا يا صهر يا مر ميل والبسيم والبال يروض على المر إلى إنه مركز دين إلهي قادم سبحانه وتعالى واحد وضع وجه إلى إنه يروض منه واحد كوج رنيزا أمضى الإسلام في التاريخ بالدرع إلهه أنت كتاب إلهي يسكتكم يسير كرام الله بالتاريخ نديب الرع ما أنت كتاب إلهي كتك تي أو يقارب دوجه شيء ما أنت عزك إيا شرفك لقى قادر يدلوا ذي مالك أصيح دلي مالك بالله با إلا يهد الصارم مالك يدلوا يسنة كسي طريق يدلوا حلق محون غليا حلق وإن وصل نغضي ماشي إلهي سبحانه وتعالى نبي والنظامك إلهي أي مقابل بالله عليكم روفي السنة ما أنت وحوقع عمتد العليل قش أما ما هي النظامك الدولة وحوقع الوضب ويوالهم مظاهرانا فنطنا وحوارك يسدبين الرباعي قبيل ضمد
dawladda wuxuu ugu kacayaa annagaana loo jeedaayo macnaha reerkanagaa la yasay dawladdii oo dhan baa la rogaya la caydhinaya laakiin dawladdan diinta ilaahay aan dan kalahayn la dagaalamaysa nin haba yaraatee far u dhaqaajinaya markiisa raalli baa laga waa la hoos fadhiyaa khalaas durbaankaa loo tumaya maalinta waxoogaa roortigu isdhimana ama waxoogaagii kibistii la waayana waa lagu kiciyo markaasaa la kala tuuri diinteenniba waxoogaa kibisaa dhaanta sooma kibis yar baa inala dhaanta shaksiyad xumadeeda iyo dad xumadeeda marka inu diinta ilahay qaadano subxaana watacaala oo marna iyona raalli uga noqonin xataa haddii nalaga xoog bato xataa haddii nalagu qasbo sankana laga geliyo raalli marna kuma noqonayno qalbiganaguna kuma tegayo shareecada ilahi subxana watacala waxaan ahay weliganana waanu dalbaynaa waana u taagnaanaynaa waana codsanaynaa waana u dagaalamaynaa sharci ilahay dhulka lagu xukumo dhulka ilahay baa iskale addoommadana ilahay baa iskale sharcigana ilahay baa iskale ninka soo galootiga addoommada ilaahay sharci uu banaanka kala yimi doonayo inuu ku xukumo ninkaasaa u baahan in la qabto ninkaa weeye ninka argagixisada ninkaa weeye ninka bulshadu wax ka karin oo caqiidadooda aan la soconin ku qasbay oo san ka gelinayn ninkaa weeye ninka wada nidaam aan la socon karin bulshada iyo dhaqankeeda laakiin ninka diinta ilaahay wada oo dadka warkaalayda ku haya ilahay buu dadka ugu yeedhay waana waxaan caqiidaysnayn walaalayaal bal u fiirsada allaha salaada tukada inay yidhi baa wuxuu ina yidhi xuduudda oofiya salaada tukadana waynu qaadanay xuduudda oofiyana waynu ka tagay wax socon karaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma allaha yidhi baa wuxuu yidhi aqiimuu salaata wa aatuu zakata isagaa ku yidhi ilahay sakadiina waan dhicin salaadiina maslaxa iigu jirto iyada waan tukano aakharan ku rabaa laakiin xuduuddan iga daa ma rabe warkaasna war soconaya ma soconay kan allihii amray baa kanna amray waa inaynu iska sii u qaadano haddaan qaadanayno sooma aliimaanu bibacdin waalkufru bibacdin ilaahay diintiisa qaarna waanu rumayn qaarna waanu beenin alla waa diiday subxana watacala saas way macana afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyada xukunkeeda ayay yabquuna raadinaya jaahiliye bini aadan aan caqli lahayn oon cilmi lahayn wuxuu malmaluuqay oo isagu jeebkiisa ka dejistay ma waxaasay raadinayaan waman cideebaa axsanu wanaag badan min allahi xagga alle xukman xukum ahaan yaa ilahay xaggiisa uga wanaag badan liqawmin dad yuuqinuuna oo yaqiininaya ilahay subxaana watacala xikmadiisa iyo cilmigiisa iyo sharcigiisa iyo masaalixda ku jirta dadka yaqiininaya uga wanaag badan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa tattakiduu ha ka dhiganina alyahuuda yahuud iyo wnasaara nasaara ha ka dhiganina wliyaaa kuwa aad jeceshihiin ood isu hiilisaan ha ka dhiganina bacduhum qaarkood baa awliyaau bacdin qaarka kale awliya u ah waman yatawallahum ciddii ka weli yeelato minkum idinka idinka midi fainahu isagu minhum ayagu ka midi ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alaalimiina ee aalimiinta ah yahuud iyo nasaaro waxaa ku darsanina caqiide iyo mabda iyo akhlaaq ha u dhawaanin wixii mucaamalo bini aadama la garay wixii horumar adduunya la kala qaadanaya la garay waa la isdhaafsadaa muslimiintu hadday horumar soo saaraan oo horumar adduunye ku saabsana gaaladu way ka qaadataa gaaladu hadday horumar adduunye gaadhaanna muslimiintu waa ka qaataan taa lama ah laakiin inaad awliye ka dhigataan oo saaxiibo ka dhigataan oo kuwa aad wada tashataan ka dhigataan oo kuwa aad isjeceshiin ka dhigataan oo nidaamkii iyo dawladdii aad dhexgelisaan oo hayeelina baa laleeyahy sababteedaan u yeelin waxa weeye nimanku ayagaa isxiga yahuud iyo nasaaro ayagaa isxiga maalintii qur-aankani degayay waxay ahayd 1400 oo sano baa ka soo wareegtay qur-aankani maalintii nabiga kusoo degay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddana maca dalika tilmaanta ilahay oo aayadda ku tilmaamayo ilaa maalinka ilaa maanta sidii u taagantay war nasaaro iyo kiristanow mabda ahaan annagaa yahuud idinka dhaweyn maxaa yahuud idinku lifaaqay bacduhum awliyaau bacdin baa lahi subxana watacala nimanku iyagaa isxiga ama yahuud ha sheegta ama nasaara ha sheegta iyagaa isxiga ayagaa isjecel ayagaa isu hiilinay idinka markay arrintiinu timaado ayagu isku dhinac bay jiraan ninkii weli ka dhigta ama jeclaada ama la tashada ama macnaa u hiiliyo ay macnaa waxa weeye talo iyo saaxiibnimo ay kala dhaxaysahay ayagu ka tirsan yahay bu rabbi subxana watacala waxaweyuusan islaanimo afka sheegin alimaam ibn jariir itabari caleyh raxmatullah imam lmufasiriin wuxuu leeyahay yani waxa wey waa gaaloobaya maxaa yeelay ninku cidduu jeclaado ayuu berrita la meel yahay xadiis masliga nabigeena ka sugantay sal lay slam ninkaad jeceshahay ood yani tala idinka dhaxayso ood la saaxiibtood fadhi wadaag la leedahay oo ninkaasi kamid baad isku dambi baatiin isku mabda baatiin isku meel baa la mariyay qolyahaas macana tafaasiil baa iyadana ku jirto ka weli yeelashada gaalada laga weli yeesho marna gaalnimay gaadhaayo islaamnimadaa lagaga baxaa marna dembi weyn wey labadaasay udhaxaysa iyadana macana tafaasiil badan baa ku jirta yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa tattakiduuha samaysanina
alyahuuda yahuudiya waalnasaara nasaaruha ka samaysanina awliyaa kuwa isxigtaan ood isjeceshihiin ood isxidhiirisaan bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale awliya u yihiin ayagaa isxiga waman yatawallahum ciddii ka weli yeelato minkum idinka idinka midi fa inahu isagu minhum ayaguu ka midi maxaa yeele ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alaalimiina ee aalimiinta ilahay ma hanuuniyo subxana wa tacala marka dawlad noo dhisa hoonadaan noo sameeya oo macnaha waxa weeyaan noo dejiya sharcigii aanu waddanka ku xukumi lahayn idinkaanu raalli idinku qanacsannahay wilaayada ka weyn xagee ka iman noo soo dejiya annaguna waan idin fulinaynaa raalli baanu ku nahay or waxaasi dullinimo ka weyn ma jirto caqligaanu makugu filaawa haddaad xataa intaad meeshaada iska tagto xeer jajabkaaga iska dejistaa waxaad leh sooma haddii aanu yeelayn ka ilahay qaado subxana wa tacala laakiin inaanu gaalun daba fadhino wan dullinimo ka weyn ma jirto ayagay ka mid yihin bu rabbi subxana wa tacala aalimiintaas fatara aladiina fii quluubihim maradun fatara waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda maradun uu cudurku yahay yusaaricuuna ayagoo degdegaya fiihim yahuud iyo nasaaro dhexdood ku degdegay yaquuluuna waxay leeyihiin nakshaa waanu cabsanaynaa nakshaa waxaanu ka cabsan an tusiibanaa inayna asiibto daa'iratun musiibada wareegta inay nagu habsataanu ka cabsan facasa allahu alla wuxuu mudan yahay an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi furid inuu la yimaado iyo nasri iyo lib aw amase amrin arrin inuu la yimaado min cindii agtiisa kala yimaado oo fa yusbixuu markaa ay ahaadaan kolkaa ay noqdaan calaa maa naadimiina kuwa qoomamooda calaa maa asaruu waxay siraysteen dushiisa fii anfusihim nafyaalkooda ay ku siraysteen arrinkaa marka inay ku qoomamoodaan wayaquulu waxay leeyihiin aladiina kuwa aamanuu rumeeye waxay leeyihiin ahaaulaai kuwani aladiina kuwii miyaa aqsamuu dhaartay billaahi ilahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda taagta ay leedahay intay tabar leedahay dhaari ayaa waxay ku dhaaranayaan inahum iyagu lamacakum la jirankiina inay ahayn war nimankiisaa ku dhaaran jirayba xabitat waxaa burtay acmaalun camalyaalkoodii ayaa buray fa asbaxuu markaa waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray noqday halkani waxa wey waa munaafiqiin waa mujtamac iyo bulshada muslimka qaar ku dhex jira waa kuwaas macnaha yahuud iyo nasaarada jecel waxay rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaad arkaysaa kuwa qalbigooda cudurku yahay qalbiyada ka jirada qalbigu waa munaafiqnimada iyo xasadka iyo jahliga iyo gaalnimo jacaylka iyo waa jirada qalbiga ku dhaca kuwa quluubtooda jiradu ay tahay yaad arkaysaa iyagoo ku degdegaya yahuud iyo nasaaro dhexdooda iyagoo ku degdegaya inay ka weli dhigtaan inay la saaxiibaan inay sharci ka qaataan inay isxijiyaan kuwanay ku degdegay lagama kari maayo markii la yidhahdo war maxaa idinku kalifay oo nimankan ka rabtaan waxay leeyihiin naksha an tusiibanaa daa'ira masaa'ibta wareegta oo maalin boqolo ku habsata baan ka cabsanaynaa inay nagu habsato saas daraaddeed masaa'ibtu markay timaado waxaan rabnaa inaanu u baxsano nimanka yani waxaan ka cabsanaynaa in muslimiinta laga adkaado oo nebi maxamed iyo saxaabada la socotaa ay gaalada ka adkaato maalintaa ay adkaadaan baan rabnaa inaanu u baxsano saaxiibtinimadii hoose naga dhexaysa oo nidhaahno warnimayo gacan baan idinku lahayn oo anagii idinla jirnay annagu xaggiinaanu ahayn jaamacadihiinaan ka soo baxnay yani mabdigiinaanu fulinaynay hadda maxaad annaga nagu gelaysaan musiibadu markay dhacdaanu doonaynaa inaan ku baxsano iyo ku cararno saasay odhanaya oo musiibo inay dhici oo muslimiinta la wada tirtiyi oo diinta ilahay laga takhallusi say rumeeyo waa midda ay ka duulayaan rabbi wuxuu yihi subxana wa tacaala waxaa alla mudan yahay inuu la yimaado lib iyo hiilo uu muslimiinta siiyo ama arrin uu la yimaado nimankaa la kashfiyo ceebtooda banaanka loo soo saaro markay labada arrimood dhacaanna ay markaa noqdaan wixii ay qarsanayeen kuwo macnaha waxa weye ka qoomamooda gaalada macnaha waxa weye xijinta isxijinayeen ee qalbiga ugu qarsoonaa inay markaa ka qoomamoodaan markay muslimiintu xoogaystaan rabbina arrinkii uu doonayay la yimaadiyo guushiiyo nasriga markaa inay qoomamoonayaan way macnaha odhanayaan yani waxa weye arrinkii war maxaa idinku wata war maxaad isaga dayn weyde war maxaa gaaladan baas idin geey qoomamay markaa ku kacayaan way macna waxay odhanayaan markay nimankii ay kashfismaan oo ceebtoodii banaanka timaado ayaa mu'miniintu waxay odhanayaan war kuwanisoo kuwii shalayto dhaarta kama dambaystaa dhaaranayay inay inala jiraan sooma haddana maanta gaalada noqday ee warkoodiiba caddaaday saasay odhanayaan macna camalkooda ayaa buray markaasay kuwa khasaare noqdeen bu rabbi subxana wa tacala ciladani waa midda lafteeda hadda maanta u geenaysa qaar badan oo muslimiina inay gaalada ku xidhmaan dawladahooda
madaxdooda siyaasiyiintooda nidaamyadooda waxa gaalada loo karlaayay waxay ku leeyihiin gaalada xoog badan gaaladii baa xoog badan hadda nimankan haddaan la raacin moogtahay hal mar bay kugu fadhiisanayaan waaba ku dilaya ay ku leeyihiin sheekhow nimankan haddaan laiska sasabin oo yani waxa weyaan loo mujaamaleynin oo ayaga wax laga qaadanin oo la raacsanaanin oo waxay rabaan aan loo samaynin hadda waa ina tirtiriya maxaynu samaynayna nakshaa an tusiibanaa daairatunti sooma waa untii nimankaasi lahaayeen bay qoladana ku hadlaya war ilahay intaad ku xidhan subxana wa tacala wax ku tirtiri ma jirto gaalana waxba ku yeeli maayo rabbigaa intaad ku kalsoonaato sharcigiisa qaado ilahay sidaa ku difaaci subxana wa tacala wax ku taaban karana ma jirto damaano wey midaasi macana fataraa waxaad arkaysaa aladiina kuwii baad arkaysaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda maradun uu cudur ku yahay yusaaricuuna ayagoo degdegaya fiihim yahuud iyo nasaaro dhexdooda iyagoo ku degdegay xaggooday u degdegiyo afkaartooda iyo mabaadidooda iyo saaxiibnimadooda la saaxiibidooday u degdegaya yaquuluuna waxay odhanayaan nakshaa waxaanu ka cabsan yaquuluuna xaal ay leeyihin ama yaquuluuna waxay odhanayaan nakshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibto daa'iratun balaayo wareegtay balaayada wareegtay inay nagu degtaanu ka cabsanayna hadday nagu degtana inay iyagaanu doonayna inaan u baxsano berrito balaayadaasi markay hagsato saas way macana ayib gaajaa dhici oo abaarooyin baa dhici oo cuduraa dhici oo hadda waxaa la doonayaa adduweynaha rabnaa inay noo soo gurmadaan sidaas daraaddeed saaxiibnimaanu la samaysanayo xidhiir saaxiibnimo maya war waxba masaa'ibtan wacan ilaahay baa maamulee rabbigaa isku xidh subxana wa tacala nakshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inayna asiibto daa'iratu facasa allahu alla wuxuu mudan yahay an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi furid inuu la yimaado muslimiinta uu furo aw amase amrin arrin inuu la yimaado min cindii agtiisa kala yimaado arrinkaa kalena muxuu yahay waa in la fadeexeeyo nimankan qalbigooda waxa ugu qarsoon saas maana oo fa yusbixuu markaa ay noqdaan kolkaa ay noqdaan naadimiina kuwa qoomamooda calaa maa shay dushii kuwa ka qoomamooda asaruu ay qarsadeen fii anfusihim nafyaalkooda ay ku qarsadeen wayaquulu waxay leeyihiin aladiina kuwii waxay odhanayaan aamanuu rumeeyey ahaaulaai kuwani waa markay fadeexoodaan ahaaulaai kuwani alladii kuwii miya aqsamuu dhaartay billahi ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda kuwa ugu adag jahdiga waxay macnaha kuwa ugu taag badan oo ugu xoog badan bay ku dhaarteen dhaarkaba dambaysa macnaha jahda aymaanihim dhaarahooda kuwa ugu adag bay dhaarteen inahum iyagu la macakum la jirankiina inay war kuwii shalay waa idinla jirnaada ku dhaaranay dhaarkaba dambaysaas oo iyaga kuwan ma xabitat waxaa burtay acmaalun camalyaalkoodii baa buray faasbaxuu markaasay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray hada billahi tawfiiq wa sala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasallam